أولًا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhamaan akhyaarta youtube-ka idin salaamay cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee aad Audacity cod aad ugu duubtay sidee aad ugu save gareyn kartaa mp3 ahaan mararka qaar waxaa laga yaabaa inuusan kuugu save gareysanin marka mp3 marka aan ku tusiyo kadibna haddaan ku tusiyo ciladu waxay tahay waxaad furaysaa Audacity ayaad furaysaa kadibna meeshaan sidaad ugu jeedo codku waa diyaar kadibna file ayaad tagaysaa kadibna meeshaan export audio ayaad ku dhufanaysaa marka aad export audio aad ku dhufato kadibna mar walba waxaad ku save gareynaysaa ayaad fiirinaysaa kadibna meeshaas mp3 file ayaad ka dooranaysaa marka ka doorato haddaan save aan dhahno marka cilada waa kana sidaad ugu jeedo marka wuxuu ku leeyahay meeshaasi kuuguma save gareys maayo mp3 ahaan ma u save gareyn karti sababtay tahay meeshaas aad u jeedo waa save gareys maayo macnaha wuxuu ka rabaa software kale lagu xiriiri ayaa jiro marka softwarekaasi ayaan sida aan u soo dhan kadibna hoos iska soo dhig kadibna browserka isticmaalaysa fur kadibna kor icoonaas wax ku qortaa Audacity file-ka kore ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufato kadibna marka page-kan uu ku soo baxo window ama Mac waxa isticmaalaysa aad dooranaysaa kadibna anaga window-ga ayaan ku dhufanaynaa kadibna hadda kuma install gareynayno waa hore aan ugu jira laakiin software kale ayaan raadinay kadibna waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay Lami mp3 recorder ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufatana waxa ku sii dhufanaysaa meeshaasi kore aad ugu jeedo install window mar walba waxa ka dooranaysaa meesha window-ga ah kadibna marka window aad ku dhufato kadibna meeshaas qaybtaasi kore go to internal lam download page ayaa ku dhufanaysaa marka ku dhufato si automatically ah page-ka kale ay isku geenayaan kadibna marka aad meeshan joogto waxa waaye meeshaas hadda waa zip ahaan meeshan waa file-ka kaliya oo setup-ka kaliya marka setup-ka ayaan dooranaynaa kadibna si automatically ahaan download kadibna sidaad ugu file-kan ma dhib badno waa iska kb mb ayuu ka sii yahay kadibna hadda waxaan leenahay open ayaan leenahay file-ka marka hadda aad file-ka aad open aan dhahdo qof walba markuu wuxuu yaqaanaa sida loogu shubayo kadibna next ayaad leedahay next install finish kadibna haddaan hoos iska soo dhigno kadibna haddii aan fiirino Audacity mar labaad aan u laabano kadib saad ugu jeedo meeshaasi file ayaad tagaysaa kadibna waxaad ka sii tagaysaa export audio ayaad ka sii tagaysaa markaad tagto desktop-ka ayaad ku save gareynaynaa kadib mar walba meeshaas ka fiir waa inuu ahaada mp3 file-ka aad save gareynayso kadibna hadda dhahno save sidaad ugu jeedo ciladu hadda waxay si sahlan ayay ugu baxday kadibna okay ayaad ku dhufanaysaa marka sidaad ugu jeedo wuu save gareynayaa file-ka marka waxaan maleynayaa in aan ka bixinay ciladii ay ku jirtay marka file-ku waa kaasa sidaasi marka waxaan ku codsanayaa kanaalkeena in subscribe like share aad dhahdaan waxaan mar walba aan soo gelin doonaa wax weeyaan cashirooyin aan aad iyo aad aan ugu faa'iideyn inaan idin faa'iideynayaan jeclahay marka sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala